aniga oo ah gudoomiyaha guddiga kaambeynka ee gobolka Awdal waxaan idinku yeeray inaan marka hore u mahadnaqo shacabweynaha gobolka Awdal ee xisbiga wadani sidii hufnayd ay u abaabuleen ololihii doorashada sidii cududooda ay ugu muujiyeen isku soo baxyada iyo doorashadii sidii codkooda u bixiyeen ee nadiifta ahayd iyo sida libta ay keeneen aad ayaan ugu mahadnaqayaa shacabkaas waxaan leeyahay waxaad tihiin cudud jirta shacab jira waan idin ammaanayaa idinkuna hambalyaynayaa aqlabiyadda sheegaya gobolka ku nool shacabka aqlabiyadihi hadday muxaafid hore u soo ahaan jireenna way muujiyeen aqlabiyadooda hadday maanta mucaarid yihiin oo xisbi mucaarid yihiinna way muujiyeen aqlabiyadooda waa awood aan la hulin karin waxaan cod dheer ku sheegaynaa in isbeddelku uu yahay mid ka go'an gobolka Awdal una howlgaleen hadalkayga waxaan ku soo koobayaa doorashadii aynu gallay waxay keentay in laga afgado oo wax isdaafin iyo wax dabamarin looga afgado darteed komishinka qaranka waxaan leeyahay war ka fiirsada dalka intii kulmiyay jiray waxa ka dhacay laba doorasho waxa ceeb iyo foolxumo ah labadiiba inay keenaan in dhiig daato dad ku dhintaan dalka doorashooyin waa laga qabanayay doorashooyin inta ka badan baa la qabtay laba doorasho madaxtooye hore loo qabtay doorasho deegaan baa la qabtay mid baarlamaan baa la qabtay ririma jiidin maxaa qaldan dadka cadliga deeqa bani aadmiga sidiisaba cadliga deeqa waxaan leeyahay komishinkana ilaahay kama dhigo kuwii u dhagan nuglaada corruption iyo bob kamana dhisirayo inay noqdaan kuwo soo saara natiijo aan xaq ahayn waxaan leeyahay iyagana ilaahay kama dhigo kuwii gacantooda dib ugu geysan lahaa Soomaaliland shacabkana mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu mahadnaqayaa shacbi weynaha wadani ee Soomaaliland sida wax kasta oo la sameeyayba ay u muujiyeen aqlabiyadda rasmiga ah ee Soomaaliland iyo sida isbeddelka u rabto